magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer waxay ka mid tahay meelaha ay dadka ugu badan ka tahriibeen tan iyo 1991 waxa gobolkani ka tahriibay dad aad u tiro badan haatanna waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ay wali tahriibtu ka sii jirto hooyooyinkan aan kula kulanay magaalada Burco ayaa waxay ka mid ahaayeen hooyooyin ay dhawaan ubadkoodu tahriibeen isla markaana wali lagu haysto dalka Yaban waxayna ka warameen xaaladda ay ku sugan yihiin iyaguna uga digay ummadda Soomaaliyeed in ay ubadkoodu tahriibaan marxin aniga waxa la yiraahdaa Ifraax Saleebaan Cadiib waxaan ahay hooyooyinka dhiban ee dadkoodu ka tahriibeen ee maanta ku sugan Yamanta waxaan adduunka ka codsanaynaa dadka iyaga intii noolayd meel baa lagu xareeyay lama soo saarin warkooda imika ma helo maalin dhaweed way daateen baa la yiri waa la laayay dadkii intooda badan meel bay ku xidhan yihiin adduunka waxaanu ka codsanaynaa bal dadka in laga hawl galo oo dadka iyaga naloo soo celiyo oo wadankoodina loo ku soo celiyo ayaanu caalamka ka codsanaynaa khaasatan Yamanta halka lagu hayo caruuraha in maanta naloo keeno gacantana la ka soo geliyo wixii nool ee imika hadhay in si degdeg ah naloo ku keeno waanu dhibanahay halka meel aanu kala hadalno ma hayno dhibaato haysata iyaga waa xareysan yihiin caalamka waxaanu ka codsanaynaa dadka deena loo soo daayo wadankoodii lagu soo celiyo dadkan doonaya maanta inay tahriibaan ee u diyaarka dhibaatada dadka haysata de maanta arkaan halka ay joogan 6 bilood bay maqan yihiin dhibaato weyn baa ku dhacday de qof walba arko qofkaas dhibaatada maanta haysatay jeelka ku jiro de waxa ku arko oo ha ku quusto maanta caalamka waxaanu dirayaa inay nooga hawl galaan caruuraha halka ku xidhan habeen iyo maalin way ooyayaan dhibaatada hanala arkaan hooyooyin baanu nahay waxaanu sanaynaa waanu dulmanahay caruuraha dhibka naga haysta halka ku xareysan waa wada dhaawac imikana way daateen dhaawac kala loo geystay teebal caalamku hanala arkaan caruuraha hana loo soo daayaan waxaan ahay hooyo ay maqan tahay inanteedii waxay tagtay labadii bishii labaad ayay iga tagtay kadib waxay tagtay Yaban halkaas ayay ku dhaawacantay oo lagu rusheeyay doontii ay saarnaayeen iyagoo dad muhaajiriin ah oo tahriibayaal ah maxay haytay markii dambe waa la soo qaaday iyagoo dhaawaca jeelal baa lagu xireeyay halka dawooyin kuma haystaan dayactir kuma haystaan waa dad jeel ku xireysan waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo ay qusayso haday Soomaaliland tayaday Soomaaliyeed tayaday dawladda Yabaneed ee imka gacanta ku haysatayba inay dadka halkan badad Yabaniyiin joogaan anagoon soo dhaweynay dadkii Yabaniyiinta qaxoontiga ahaa wadankayagan ku soo dhaweynay dhul baanu siinay dawladda Yaban waxaan ka codsanaynaa imka dadkayaga gacanta ku haysa si sharaf leh inay noogu soo gudbiyaan caruurtayada oo noo soo kaxeeyaan baan ka codsanaynaa dadka tahriibay waxaan leeyahay kuwa ay ku horeeyay raqiyo ruuxba aan lahaynin ba ku taamila qaat aan raqiyo ruux doona lahaynin iyo kuwa dhaawaca ah aan Axmed Jabin iyo dawatoon haysan annaga waa la dareemi karaa hooyo ilmaheedii 5 bilood maqan yahay oo dhaawac yahay oo jeel ku jiro oo 24 saacadood bay isagoo gaajoonaya isagoo dulmanaya isagoo dhaawac ah oo aan dawo haysan uu la soo hadlayo xanuunka ay qabto waa la qof kasta waalid uu dareemi farxiya waxay ka mid tahay hooyooyinka ay caruurtoodu ka tahriibeen waxayna ku sugan tahay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer wareysi gaaban ayaan la yeelan doonaa farxiya ku soo dhaw telefishinka Soomaali Cable waan ku dhawahay hooy waxa la sheegayaa in ilmahaagii uu ku jiro dadka tahriibay bal ka waran xaaladda uu isagoo ku sugan yahay xaaladda adiga laftaada aad ku sugan tahay hooy xaaladooda dadkaas oo dhibaato soo waramayaan 24 saac imka way daateen tiraba 2 jeer bay daateen habeenadan warwariyo wareer maanu seexanin wax warana kama hayno wax telefoonona laga qabanaya ma jirto marba jeel baa lagu shubayaa dawaa dad xaniban xagee ku jira Yaban Sanca jeel Sanca ha marka hore xudeeday ku xidhnaaye bal hadda marka dadku tahriibaan dhibaato soo gaadha qoyskii bal xaaladda idinku ku sugantiin hadda ka war annaga xaaladayadu dad dhibaataysan baana dad awaadood ka maqan tahay baana dad maxay ahay tooyda ay ka xiran yihiin baana dadaan waxba qaban karin baana iyagana waxba u qaban caruurta sidan oo kale ku sugan Soomaaliland iyo dhulka Soomaalida ee doonaya inay tahriibaan iyo waalidkoodaba fariin maxaa u diraysaa waxaan u dirayaa in dadkaas dhibaatada ay maxay haytay ka joogaan iyo mahalakada oo ay iska ilaaliyaan oo maxay haytay waalidkoodana u nasteexayaan biidmillaahi tacaala iyaguna nasteexaystaan sidaasaan oran lahaa annagana ilaahay noo soo sakhar noo soo dhaw Shaafici Maxamed Ibrahim telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer